xaalad shaqo la'aan ayaa soo wajahday dadka ku shaqaysta doomaha isaga kala goosha jasiiradaha gobolka Jubada Hoose kadib markii sida la sheegay ay dabeylo xogan ka jiraan xeebaha gobolka Jubada Hoose gaar ahaan Madhaba, Kudhaqan iyo Burgaabe oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose. Saameyn dhanka nolosha ayaa xilligan soo wajahday dadka ku nool deegaanadaasi oo ay markaa ku tiirsaneed noloshooda kheyraadka badda. Guud ahaanba haatan waxa uu hakad ku yimid oo cabsi xogan oo dhanka dabeylaha ay ka jiraan xeebaha gobolka Jubada Hoose iyadoona inta badan ay hakad ku jiraan doomaha isaga kala gooshi jiray deegaanadaasi. Maamulka Jubbaland ayaa horay dadka ku shaqaysta doomaha iyo kuluumeesatada uga digay inaysan xilligan ku safrin xeebaha kadib markii maalmahan dambe ay bateen dadka ay doomaha kula qallimayaan xeebaha. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Badhaadhe ee gobolka Jubada Hoose Yuusuf Maxamed Ibrahim oo la hadlay telefishinka Kalsan ayaa waxa uu ka warbixiyay saameynta ka dhalatay hakadka ku yimid doomaha isaga kala gooshi jiray jasiiradaha gobolka Jubada Hoose. marka baddaasi waxa weeye dabeylaha kacsan dabeylaha hadda kacsanna waa dabeylaha maxsuumka ah maxaa la yiraahdaa xilligaanayto aan safarada ku wanaagsanayn baddii ay ka shaqaysanayeen dadkii xoogsatada ahaa waqtigeeda ay ku adag tahay taasoo ay maxaa la yiraahdaa isha waqtiga ay qaadan doonto dabeylahana aan hadda sheegi karin oo ay anfilayo bishaan inay dhamaysan doonaan dadkii ay haddeertaa badda ka wada shaqaynayeen sida hadda kuwii kalluunka ama kuwii argoosatada ama wixii wax jallaaban jiray dhamaantooda waxa weeye xaalad aanan caadi ahayn ba macnaha ay saacadan isaga jiraan. marka insha Allah taala kulli waa wax rabaaniya wax hadda socdo waxaana jecelnahay insha Allah taala dadku inay ka digtoonaadaan baddaasay dabeylahda iyo waqtigeeda maxaa la yiraahdaa ay sheeg socdo inay bal ka fikiraan oo dib ay macala ogaadaan. dhibaatooyinka badda hadda ka dhacay waxay tahay doomihii baa socon la doomihii baa dabayshi maxaa la yiraahdaa aad ay u dhibayaan safarkii oo maxaa la yiraahdaa waqti gaaban awal lagu socon jiray oo hadda taa waqtiga uu dadku dheeraaday. shabaagadihii badda la dhiganayay oo ayagiina maxaa la yiraahdaa ay sheego ay qaarkood dabayshi ay jiiteen oo ilaa hadda taa dadkii ay laayihiinba way jiraan. hase ahaatee laakiin waxa weeye waxaan waa wax rabaaniye ah wax hadda macnaha wax laga qaban kara ma aha dabeylahaaneeto laakiin dadku waxaan uga digaynaa inay maxaa la yiraahdaa ay sheego ay xilliyada safarka ay ku wanaagsan tahay inay safraan dadka shacabka waliba awqaasatan ganacsatada iyo dadka shacabka ee maatada ah inay dabeylahan xilliyadan oo kale kaca ayaa sidoo kale saameynta ugu weyn xilligan ku yeeshay doomaha ku soo xiran jiray marsada caalamiga ah ee Kismaayo. Cabdilmajiid Cabbaas Aadan Fantastic telefishinka Kalsan Kismaayo.